Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maalmahanba waxaynu ka hadlaynay API-yada iyo sida u shaqeeyaan. Sababta aan videoyadan uga sameynaya waxa weeyaan haddii kambaniyada waaweyn ee YouTube iyo Twitter iyo Google Map or waxaasoo dhan ay API suurtagelin karaan, waxa aan encourage garaynayaa kambaniyada waaweyn ee Somaliland sida Saudi iyo Dahab. Intii qof hoosta intuu kasoo bilaabo uu kambani cusub dhisi lahaa inay u ogolaadaan API-yada in dadku isticmaalaan oo API-yada ku invest garayaan oo ay sameeyaan. Maanta waxaan doonaynaa inaan ka hadalno YouTube API oo kuu suurtagelinaya inaad channelada heshid. Dadku waxay leeyihiin heshid waxa weeyaan topicyada iyo waxyaabaha dadku ay post garaynayaan inaad heshid. Xataa adigu post garayn kartid adiga oo waxaad doonaysid inaad post garayn kartid adiga oo isticmaalaya YouTube API. API-ga maanta aan bilaabayno samaynayno saad aragtid waxaan ku jiraa database YouTube la yidhaahdo oo anagu sameeyey videos data. Waxba ma hayna imanka tusaale ahaan waa zero way maran tahay. Pagekii iyo website yar aan sameeyey oo aan doonayay inaan ku eego qofku muxuu qof kasta Somaliland wax ka yidhaahda waxay yidhaahdeen waxay descriptionka videoga xilliga yidhaahdeen waxaas channel ID-ga informationkaasaan doonaya inaan qabto. Marka waxaan qoray Python yar or API-gaas inoo suurtagelinaya. Marka haddaynu nidhaahno run extension baan isticmaalayaa. Marka haddaynu nidhaahno run waxaad arki kartaa data iyo informationka aynu helayno. Waxaynu helaynaa tusaale ahaan haddaynu xagga ugu sarreysa kasoo bilowno oo informationka wayna siinaya waxa weeyaan pagekii qofka codsaday API-gan codsaday halku joogo video ID-ga xilliga la publish gareeyey wixii qofku uu yidhi qofkii waxaa yidhi channelkiisa magaciisa. Marka waxaan doonayay inaan informationka qabto oo marka aan API-ga aan codsado daadada aan ka helo YouTube uu igu soo respond gareeyo igu soo jawaabo aan database-kayga helo. Marka haddaan refresh garayno database-keena waa inay informationkii cusbaa ee aynu YouTube ka helnay API-giis waa inay inoo soo baxaan waana kaas. Dabeetana waxaan sameeyey page yar oo aan eegayo doonaya dee in mar walba lama eegi karo database marka inaan page yar eego oo waxa weeyaan qofkii wuxuu yidhi iyo waxa weeyaan qofkii yidhi iyo waxaasoo kale. Marka tusaale ahaan haddaan doonayo video ID-ga tusaale ahaan qofka la yidhaahdo magaciisu African News imsa jeer buu Somaliland tusaale ahaan ka hadlo kale haddaan analyze garaynayo si kooda yar ayaynu qori karnaa where channel title baynu odhanaynaa channel title-ka uu yahay waa rudimentary waa wax low level laakiin de sadoontid bad ayaad odhan kartaa equals imsa jeer buu tusaale ahaan qofkani uu yidhi. Marka waxaan doonayaa inaan count garayo so count ID aynu ID garaynayna imsa jeer buu qofkan tusaale ahaan Somaliland ka hadlay. Sidaad aragtid mar quraata count ID equals 1 mar quraatuu Somaliland qofkaasi tusaale ahaan ka hadlay. Marka African News waa channel weyn. Midda kale waxaad ogaataa API-gu waxay ku siinayaan page bay ku siinayaan. Marka shantii ugu horreeyay baynu qabanay saad arki kartid waa dad ID-yada akhridid waa shantii ugu horreeyay bayna siiyeen. Marka sidaas ayaa loo isticmaalaa YouTube API channelada dhigi kartaa wax kasta dhigi kartaa hadda tagtid developers.google.com/YouTube halkaasaad ka heli kartaa informationka doonaysid. Waan sii wadi doonaa API-ga inoo xiga aynu samayn doonaa waxa weeyaan API-ga ku saabsan weatherka amba hawada saa looga soo qaado informationka Google oo website-kaaga aad ku dari kartid ayaynu ku xigsiin doonaa.